asxaabta soo dhawaada. Maanta waxaan idiin sameynayaa kareem mucjisa oo jikadaada hal wax oo jikadaada yeel oo natural ah. Kareemkan waa kareem mucjisa, faraha ayuu ku cadeynayaa. Haddaad tahay dadka u baahan wejigooda sida beebiga butuc inuu noqdo, butuc quruxa ayuu wejiga kaaga dhigayaa. Sidoo kale haddaad tahay dadka markay sujuudaan faraha meesha ka madow yihiin ama weelka markay dhaqaan faruhu dilaacaan oo faruhu ka adkaadaan, maanta kugu dambeysa faro qurux badan oo cadcad ayaa yeelanaya biidni allah. Sidoo kale haddaad jirka ku dhaqatid cajab, jirka dhalow kaaga dhigaya. Waa hal wax oo jikadaada yaala. Videoga like dhahaya. Haddaba aan videogeena gudagalna. Bismillaah, allahuma salli calaa sayidina maxamed. Waxaan aad u jeedaan hal qaado oo kamida ayaan waxaasoo dhan ka sameyneynaa idiin sheegay. Waa miro mucjisa, jiko kasta way yaalaan, waana wax natural ah. Asxaabta, mirahan aad u jeedaan waad garateen baan filayaa magacooda. Waa miro cajiib ah. Maxaan sameyneynaa? Hal qaado oo kamid ah mirahan ayaa soo qaadanaysa. Waxaa sameynaya biyo kulul ayaa 4 jeer ku dhaqay. Biyaha ku shubee waa dhaqay waa ka daadinay. Biyo kale ku shubee waa dhaqay waa ka daadinay. Biyaha kale ugu dambeeya ku shubeysa waa daboolay. Habeenkii markaa sii seexanaysid aad dabooleysa. Maxaa sameynaya marka subaxii markaa subaxiga tukanaysa biyaha ka daadinay, biyo kale ku shubeysa, dan waa nadiifine waa shiideysa. Waa biyo mucjisa. Ani xalay markaan seexanayaan biyo halkii qaado ku dhigay say u badatay fiiriya maasha Allah. Horta ma garateen mirahan waxa waaye waa xulbad. Subhanallah, waa miro mucjisa asxaabta, laakiin uma fiicna hooyada xaamilka ah ama se uur kale waa inaadna u soo dhaweynin. Asxaabta, bahalkan mucjiso waaye runtii. Biyihii waa kasoo daadiyay, waa soo dhaqay. Hadda waxaan sameynaa qaado saliid saytuuna ama qaado saliid qumbaha baa ku daray, waa soo shiidaysaa. Runtii alaabtan mucjiso weeye, ha degdeginina. Waxaan ka sameyneynaa kareem iyo alaab adiga dhan kaaga dhigaysa wejiga butuc. Hadda waan soo shiidnay. Waxaan aad u jeedo halkaa qaata waxyaabo aad u tiro badan aan ka sameyneynaa. Subhanallah, geedkan haddii ogaan lahayn dadka waxtarka faa'iidada ku jirta dahabkay ka dhigan lahaayeen. Hal qaadaa ka soo qaadaysa saxaabta. Kareem waxaan ka sameyneynaa wejiga butuc sida beebiga kaaga dhigayo. Waxaan ku darayaa asxaabta qaado malabka saa ogtihiin shinida geeda kala duwan ayay daaqdaa oo wada nafaqo ah oo fiitamiino ka buuxaan. Marka malabku waa quraanka kariimka aanu yahay kalaamkii Allah ayaa kaaga filan oo asaga dhan nafaqo waaye. Sidaa waa garaaci keligeeda asxaabta. Waxaa ku darsanaysaa labeen adoo aan waxaasoo dhan ku darin, cajab waaye. Asxaabta, waxaan ku darayaa hal qaado oo caano boora. aad u caano booruhuna u fiican yahay markii lagu daro xulbada horta urkeeda ma dareemaysid, waayo waa soo radinay, waa dhaqnay in badan oo urkii wuu ka dhintay. Tan kaleeta cajab waaye oo markaasaan u samaysatid urna ma dareemaysid. adi dhanna waxay kaa dhigaysaa waxyaabaha la isku cadeeyo waxyaabaha ugu muhiimsanay ka mid tahay. Guri kastana way taalaa. Haddaa magaalo joogtid, haddaa baadiyo joogtid, maanta laga bilaabo lacagay kaa bixin. kareem qaaliya ha soo gadanin. wax natural oo jikadaada yaala isku qurxi walaashayda qaaliga. waxa kale aan ku darsanaynaa asxaabta waxaa waaye waxa loo yaqaano boolbaraha ilmaha loo mariyo maaragteen marka xafaayada laga bedelayo. kaas waaye qaadada foodeeda bas ha ku daree, ha ku buuxinin. waxyaabaha wejiga dhalaaliya ayuu ka mid yahay boolbaraha. tan kale markaa qoraxda kusoo gubto jirka haddii ay nabro kaa soo baxaan, boolbaraha iska mari, jirka dhan wuu kuu fiicnaanayaa. asxaabta waa garaace alaabtan waxaa marsanay wejiga 20 daqiiqo ka badan u daynay, waa iska dhaqaysa maasha Allah. asbuuci 2 jeer hadaa marsatid wejigaaga wuxuu noqonaa ilmaha beebiga iyo adi isku weji waa noqonaysaa. tijaabi markaa kadibna wixii aad aragtid kasoo hadal. okay asxaabta, hadda saasa u marsanaysaa cajab weeye. runtii waa idinkula talinayaa. waxaan sameysanaynaa hadda kareem mucjisa faraha kaaga dhigaya qurux. alaabta inta ii soo hartay waa wax iska barakaysan. halka qaadam u jeedaan markastoo aad garaacdidna wuuba sii badanaysaa. asxaabta, liindhanaan hal xabo liindhanaan weyn ayaan ku miirayaa. kareemaan sameynayaa aad talaagada gashanaysid ama jikada dhiganaysid oo ku haynaya wax badan. vitamin C baa ku jira bahashan. jeermiska ayay dishaa, jirka way cadaysaa, faraha way kuu cadaynaysaa. cajab waaye. marka liindhanaanta cajab waaye. qof walba wuu garanayaa waxtarkeeda. huruudana urkana maxaa la dhahaa waxaa loo yaqaano xulbada urkana way ka bi'inaysaa.
tan kale cadaanna way ka dhigaysaa. Waa garaacaysaa alaabtan aan sameynayno jirka waa ku dhaqan kartaa. tan kaleeto faraha cajab ay ka dhigee. Waxaan ku darayaa qaado kale oo saliid saytuun ah. Waxaad ku bedelan kartaa waxa loo yaqaano qaado saliid qumbaha. waxaan ku darayaa asxaabta body lotion. kareemka haysatid aa ku daray. in kareem aad haysatid waxaa kaleeto ku bedelan kartaa saliid saytuunka, waxa loo yaqaano saliida lowska ama saliid qumbe, labadaas midkooda ku bedelan kartaa. xooga u garaace, fiiri markaa garaacdidba way sii badanay. subxaanallah, waxbaa ku jira geedan mucjisaa waxay yihiin ma aqaani. waa idinkula talinaa, waa alaab guri kasta taala, meel kasta aad joogtidna aa ka helaysid. asxaabta waxa kale oon ku daraynana waa wax u siyaadinaya waxyaabo badan oo fiican. waxaa waaye waxa loo yaqaano waraangada guri kasta way taalaa. xalwada lagu darsadaa, macmaanada lagu darsadaa. jirka way soo toobaya haddii macnaha uu jirkaaga uu duuduub leeyahay way soo toosaysaa. waxaan kaloo ku darayaa geelisiriinka. guri kasta dadkeena badanaa wadankeena geelisiriinka isticmaalnaa, laakiin kareemka haysatidaa marsanaysaa ku daraysaa baan ka wadaa. geelisiriinku wuxuu u fiican yahay jirka, jileec buu ka dhigaa, weliba gacmaha iyo lugaha sulux qurux jileec uu kaaga dhigayaa. laakiin adi kareemkii marka aa haysatid aa ku darsanaysaa. runtii alaabtan waa garaace asxaabta. kareemkan markastoo aa weelka dhaqdid markaa faraha qalalso, faraha iska dhaq, qalalso, juq baa ku siinaysaa. farahaaga waxay noqonayaan dhalo jajab ma yeelanayaan iyo dildilaac, way isugu kaa ekaanayaan. runtii aada u cajab u yahay kareemkan asxaabta. haddii aad awoodid waxaa sameyn kartaa oo kale waa ku qubeysanaysaa, laakiin sheeko dheer u baahan yahay markaa ku qubeysanaysa asxaabta. waxaa kaloo sameyn kartaa in yaraa ka qaadaysaa kareemka face washka la dhaho aa wejiga ku dhaqanaysid iyo asaga isku qasaysaa. wejiga markaa dhaqanaysaa ku dhaqanaysaa. alaabtan cajab waayo, waa idinkula talinayaa qof walba inuu sameysto. hadda kareemkii waa noo diyaar, waa wax jikadaada wada yaala. waxaa soo qaadanaya daasad maran, dhalo maran, wixii aa rabtid waa ku shubanaysaa, ama talaagadaa gashanee ama jikadaa gashanaysaa. wuxuu kuu ooli karaa 2 asbuuc, ma halaabayo. hadduu jikada ama dhigo ama meesha rabta dhigay, markaa weel dhaqdidba faraha marso. runtii alaabtan cajab weeye. waxaa kaloo sameynaya jirka ku dhaqanay. horta waxa jirka lagu dhaqdo waxa ugu wanaagsan weeye, weliba cagaha. laakiin wayna qofka waxay ku fiican tahay 2 musqulood haysto, waayo bahashan waxay u baahan tahay waqti. jirka dhanaa marinaysaa adigu ilaa 20 daqiiqa ku hayne. horta faraha markaa marsanaysa saasa u marinay meelaha madow maanta kuugu dambeysa. farahaaga qurux bay ahaanayaan, juq baa ku siinay. hadaa rabtid waxaa xiranaysaa galoofyadan oo kaleeto. faraha markaa marisid waa ku haynaysaa 30 daqiiqo 10 daqiiqo, hadhow waa iska siibay, waa iska dhaqaysaa. kareem kalaa korka ka marinay, cajab baa noqonay wallaahi. asxaabta fiiriya alaabtan, tijaabiya insha allah. okay, hadda kareemka waa noo diyaar, meel baa dhigane. maxaa kaloo sameynay markaa rabtid inaad jirka ku dhaqatid, jirka dhan musqushaa la tegaysaa. intaanoo kale iyo ka badanaa soo qaadane, jirka dhan aa soo marinaysaa. markaa jika marisid asxaabta oo waxaa ku haynay adiga ilaa 10 daqiiqo 20 daqiiqo. waa hadaa haysatid qof waxay ku fiican tahay 2 musqulood leh, waayo maxaa yeelay dadka dhan way u baahan yihiin musqusha. marka waxaa sameynay jirka dhan asaa u marinay, waa ku haynay. kadibna maxaa soo qaadanay liifad aa soo qaadanaysaan oo kaleeto. saabuuntaada soo qaadanay. saabuunta liif boyga la dhaho aa ugu fiican in lagu dhaqo waxa loo yaqaano xulbada, waayo si fiican jirka usoo dhaqdaa. den maasha allah, jirka dhalo sulux ku noqonaya. asxaabta intaa ayaan jeclaystay inaa idinla wadaago. videoga like dhahaya, sii share gareeya, pagekana follow dhahaya, like na siiya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.